دريقان ودري معجزة له ناقتان وحو قرد بور كوابت هاد العب كرد حتى عقدته ويبادت دريقان معجزة وحو كيمادي نين هاد كور oo xool dhaqataa ayaa meel wuxuu qoday god qashin ah godkaas qashinka soo qoday ay waxa ka helay digsiga soo qaatay ka bacdi uu nadiifsaday isla markaasna digsiga oo meesha ka helay xooliis ku list markuu digsiga meesha dhigto caanay ku listay wuxuu ku soo laabtay godkiisa soo oo tooshiisa markaas buu arkay caanihi soo daadan oo godka ugu soo galay wuxuu isdhaay caanaha maanta way qasaareen laakiin nasiib wanaag wili caanihi weelku ku jiraan wuxuu leeyahay digsigan caanaha ka dhameenin wuxuu soo qaatay weel badan si uu ugu shubo caanahi ilaa hadan caanihi kama dhamaan laakiin markii dambe wuxuu ogaaday weelkan hadii la gadiyo inay wax ku jira dhamaan doonaan markaas ninka aad ay u farxay markaas wuxuu ka sameeyay ganacsi badan caanihi kadib noloshiisu way horumartay waa kana guriga buushka oo isku bedelay guri sar aad u qurux badan habeen kamid ayaa waxa uu soo tashtay laba nin tuuga ah si ay u dhacaan ninkan taajirka ah isla markaana waxay jabsan qasnadii meeshii uu sugay inay lacag u soo baxdo waxa uu soo baxay digsiga cajiibka labada nin tuugada waxay isdheen digsigan wax yar loo maxareenay waa inaan qaadanaa isla markaasna waxa ku soo kacay wardiyaasha mees jiifeen labada nin tuugsi u soo bursaayeen isla markaasna waxa ka dhacay digsigiina waxa qaaday biidad aad u socdeen maadaama roob aad badan daay daadkiisa uu soo wada wax u keenay islaanta weelka ahayd weelka ay soo qaadatay waxayna maad goobta shaqada markaas maamadu waxay ku rid bur ay gadanaysay laakiin nasiib wanaag burkaas ma dhamaana waa si badanaa maamadu weelaya waxay ku fikirtay inay lacag geliso sidoo kale lacagtina badanaysa isla markaas maamada lacagta ku farxday waxayna ku fikirtay digsiga inay dadka qarsato waxayna ku rid god meesha ku yaal si ay dadka dhan u arkin markaas kadib waxa arkayna maamadii xabsil ku soo xiray sababtoo loo soo xir waxay digsiga isticmaalayso wixii ku rid ku shilan kunkaasna waxa noqday ku shilan hal mar isku wada eg dawlad maamada sheekada u bagweys waxa la leeyahay kunkan hal mar soo noqday mar walbana waxa lagu canaana jiro oo weydii jiro halkan ku meesha keentay ilaa mar dambe gabar ka badbaadisay mooyaane gabadhaasna waxay gabar meesha ku jirto isla markaana agta weelka waxay ku sheekeynaysaa gabdhaha inuu jiro dhar cajiib ah waxaan soo aadayay halka oo dharka cajiib laakiin nasiibxo meesha waxa la dhis qasir aad weyn lawoodna waxay ma ayagu dhakhtar isku soo dhigay waxaan ka shaki wardiyaha meesha waxaan dhahay waji dhakhtar u meek waa niga shaki markaas wuxuu sheegay inay yihiin dhakhtar xoolaha ee ka shaqeeya meesha xanaanada xoolaha wuxuu soo tusi doonaa dibi meesha ku xiran laakiin nasiibxo aad ayuu ka cabsanay dibiga meesha ku xiran waa dibi laba goosoole waxaan naayo waxa ka fuuleysan habaraatin meesha dibiga ku xiran waa halka dheeriga ku duwan isla markaasna aqoonsanaa waxaan u soo qaadaa yaambi birsi godka u qodaan laakiin waxa arkay ninka guri iska leh oo had koor ee soo gaadeen gabdhaha xarifiin ay haweenku waa dhacda dhalay ninkan wuxuu u sheegay inay faalooyin oo guulisada noloshiisa waxaan u saareen tuwa kasanka laakiin nasiib daroos waxa wuxuu soo kacay suuxii asoo ka dhacsan oo cos soo libistaniyo markaasna shaqaalihiisu wuxuu ku amray inay xiraan albaabaha si aysan guriga uga baxsan naagtaana waa naag xariifad ee gaariga xog galay seetaaniyo baad gaariga qaadana ay saaxiibteedna bartaas iska baxsanayaan